kulankan oo jeedkiisu ahaa soo dhaweynta wasiirka wasaaradda macdanta iyo batroolka dowladda Soomaaliya mudane Maxamed Muqtaar Ibraahin ayaa waxa soo qaban qaabiyay jeelada Soomaalida ee ku sugan magaalada London iyo xafiiska telefishinka qaranka Soomaaliya oo ku leeyahay magaalada London xafladda ayaa waxa ka soo qayb badan oo ka tirsan bulshada Soomaalida ee ku dhaqan magaalada London kuwaas oo dhamaantood ka hadlay fikirkooda ku aadan soo dhaweynta wasiirka wasaaradda macdanta qaar ka mid ah dadkii halkaas ka hadlay ayaa bixiyay talooyinka ku saabsan sidii loo horumarin lahaa wasaaraddaasi iyo hannaanka qaybsiga khayraadka iyo sidoo kale buraamuro gabayo iyo barnaamijyo u badnaa guubaabo soo dhawow mar koobaad iyo mar labaad waxaan kaaga mahad celinayaa mudane wasiir waxa qabadka ay dawladdeena federaalka ah ay ku tallaabsatay waxaan kaloon kaaga mahad celinayaa dalka Soomaaliya oo daruufo culus ku jira ayaad waxaad haddana door biday inaadna soo fiisid garayso jaaliyadda Soomaaliyeed oo ku dhaqan dalka Ingiriiska waan idinku dhiirigelinayaa inaad mar kasto sidan oo kale aad soo dhaweysaan madaxdiina oo aad ku dhiirigelisaan waxaan laakiin meesha ka marnayn inaad ku qabsataan wixii aysan qabanin waxaan u mahad celinayaa guddiga ka soo shaqeeyay xafladan quruxda badan leh ee aad u jeedaan sida ay u bilan tahay ay isugu yimaadeen bulshadii jaaliyadda UK oo kala duwan caawa inaan soo dhaweyno wasiirkeena waxay ka mid tahay munaasabooyinkii balaarnaa ama badnaa sanadii la soo dhaafay aynu ku qabanayno magaalada London jaalid ahaan oo aan ku soo dhaweynaynay madaxda qaranka dabcan soo dhaweynta macnaheedu waxa waaye dadka Soomaaliyeed oo meel ay joogaan ba sharfaya dadka madaxda iyo maamuuska qaranka wata waxa loo soo cararayaa ceelashan batroolkiyo waa coodkan ku baxay ee caadil kugu manaystay taas waxa waaye mar kastaba waxay target ka tahay ama ay taabanaysaa batroolka ilaahay subxaan qaadir ha kugu asturo xilka adag ee lagu dhiibay wasiirka waxaan leeyahay halka lagu dhiibay ludkii maahina waa laftii Soomaaliya lagu dhiibay runtaan ku sheegay anigu ludku waxa weey waa waxa dusha laftuna waa dhuuxa Soomaalida maanta lagu dhiibay dhuuxa dheeftiisa adiga laga sugayaa waan ogsoonahay in ay soo xuleen generation change sameyn kara oo aqoon leh especially madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo current prime minister Umar Abdirashiid oo keenay dhalinyaro generation cusub oo aan criminal record ku jirin kana bixi kara Soomaaliya waxa yaala aqoonna u leh oo naga gudbin kara waxana hortaagan wax kasto oo dalkan ka soo baxo khayraadka laga hadlayo batroolka caawa aan maqlaynay iyo macdantaas sidii loo wadaagi lahaa ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto mar walba dawladda soo dhaweynaya wasiir walba yimaada laakiin reer London waxay go'aansadeen adoo laba maalin magaalada joogaya inaan diyaarino in kulan kan oo kale uu dhaco marka taas oo sharaf noo ah ku soo dhawow wasiirka halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ahamiyadda ugu horeysa dawladda Soomaaliya imika ay tahay gaar ahaan xukuumadda cusub in la helo xasilooni siyaasadeed oo aanu dhicin iska qabsi dawladda dhexdeeda tan inta laga gaarayo sanadka 2016 kolkaas oo loo midalsan yahay inay dhacdo doorasho guud oo Soomaaliya ka hirgasha taas oo noqon doonta doorasho taariikhiya waxaan idin sheegaa horta markii aan imaaday wasaaradda aan tagay waxyaabihii aan dareemay ama markiiba ii muuqday waxay ahaayeen in Soomaaliya ay khayraad ilaahay u ku manaysay in la aaminsan yahay gobolkay doontaba haatee ama qaabiyada ee cusub ay hadda u sameysmaysaa haato ama sidii ilaahay marka hore u abuuray haato oo jamhuuriyadda federaalka ay u ahayd haatee state ama macnaha qaabkan cusub ee federaalka u sameynayso state aanan lahayn dhaqaale ilaahay khayraad dabiici ah ma jiro annaga waxa noogu weyn golaha wasiirada cusub waxay tahay waddankan in xasilooni siyaasadeed ay ka dhacdo maxamed maxamuud dhoore telefishinka iyo raadiyaha qaranka London